بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa telefishinka caalamiga Universal Studio ku yaala magaalada London daawadayaal meel kastoo naga dhahanaysaan ku soo dhawaada barnaamij kamid ah barnaamijyada dhinaca ra'yiga oo aan la wadaagno daawadayaashu meel kasta ay joogaan iyo waliba siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyadoo markaas aan soo qaadano qodob kamid ah qodobada aanu isleenahay waa ay ku haboon tahay inay dadku la wadaagaan Universal TV intii nidheehatay barnaamijyo ayaa jira soo taxna oo ka hadlaya guud ahaanba dawladda federaalka iyo waliba maamul goboleedyada iyadoo maamul goboleedyada aanu ka hadalnay dhowr maamul goboleed sida maamul goboleedka Puntland iyo waliba maamul goboleedka Koonfur Galbeed barnaamijkan isaga ah ee sida tooska aad uga dhahanaysaan Universal TV waxa uu daaran yahay ama uu ku saabsan yahay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo kamida maamul goboleedyada ka dhisan ee dalka Soomaaliya Jubbaland waxaa la yagleelay bishii May 2013 waxaana markaasi la isugu tagay magaalada Kismaayo oo ah xaruntii gobolka Jubbada Hoose marka la fiiriyo Jubbaland waxa ay ka kooban tahay 3 gobol oo kala ah gobolkii Jubbada Hoose gobolka Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo siyaasiyiinta iyo waxgaradka ayaa isu tagay kadibna halkaasi ku sameeyay baarlamankii loogu talagalay inuu soo xulo barnaamijyada ay ku shaqayn doonto dawladda la dhisi doono iyo madaxweynaha la dooran doono baarlamaankii tiradiisii waxay noqotay Jubbaland 75 xubnood oo rag iyo dumar isugu jira kuwaasi oo loo arkayay inay ka socdaan guud ahaanba qabaa'ilka kala duwan ee dega Jubbaland doorashadii madaxtinimada ee ugu horeysay markii la qabtay 2013 waxaa la doortay mudane Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo isagu ilaa iyo iminka ah madaxweynaha Jubbaland oo mar labaadna doorasho ay ka dhacday Jubbaland marka la fiiriyo deegaanada Jubbaland guud ahaanba gobolada Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo waliba gobolka Gedo waxaa mara webiga Jubba dhinaca kalena marka la fiiriyo waa dhul Soomaaliya marka loo eego barwaaqadiisu ay badan tahay maasha Allah xagga badda iyo kalluumaysiga xagga barigana dhinaca xoolaha oo xoolo dhaqatadu ay jiraan oo ay ku baahsan yihiin guud ahaanba iyo waliba dhinaca beerashada oo webiga laga faa'iideysto taasoo ah fursad dalka Soomaaliya uu lahaan jiray gaar ahaan gobolada Jubbooyinku ay lahaayeen dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay u arkaan xilligii dawladdii dhexe ay burburtay 1991 wixii ka dambeeyay sidii la rabay inaan looga faa'iideysan iyadoo waliba magaalada Kismaayo ay ehel u noqotay dagaalo kala duwan iyo kooxo kala duwan oo isku qabsaday oo isaga dambeeyay taasina ay keentay in colaadu ay ragaadiso barwaaqadii dhinaca badda dhinaca bariga iyo waliba beeraha iyo xoolaha intii uu dhisnaa maamulka Jubbaland 2013 wixii ka dambeeyay waxa uu lahaa mucaarad iyo muxaafid kuwaasi oo degan gudaha iyo dibadda dadka mucaaradka waxay ku doodayaan inaan waxba la sameyn kuwa muxaafidkaana waxay ku doodayaan waxqabad xoog leh in la muujiyay haddaba siyaasiyiinta barnaamijyada noocaas ka qayb galaysa sida barnaamijkan Jubbaland ee ka socda dhinaca Jubbaland oo hadda xilka haya iyo kuwa aan xilka haynba aragtidooda ayay ka hadlayaan laakiin ma aha aragtida telefishinka caalamiga ee Universal waxa intaasi dheer dadka soo wacaya oo telefoonka uga qayb galaya iyaguna aragtidooda ayay ka dhiibanayaan aragtida Universal ma aha waxaana la rabaa dadka ka qayb galaya barnaamijku qaab asluubaysan inay fikirkooda u dhiibtaan fayow taasi oo markaasi noqon karta mid ay dadka dheehanaya barnaamijku ay wax ka faa'iidi karaan
marka haddaba la fiiriyo maamul goboleedyada dalka soomaaliya ee dowladda federaalka xiriirkoodu ma aanu fiicnayn intii ugu dambeysay iyadoo maamul goboleedyadu ay isugu tageen magaalada kismaayo gogashana uu dhigay axmed madoobe kadibna halkaa ay kaga dhawaajiyeen inay dowladda federaalka ee soomaaliya wada shaqayntii xiriirka ay ka goosteen wixii markaa ka dambeeyey aqalka sare ee baarlamanka ee dalka soomaaliya ayaa xubna u kala diray 5 maamul goboleed si uu u soo xooraansado waxyaabaha ay tabanayaan kadibna la isugu soo laabtay magaalada muqdisho iyadoo dhinaca dowladana fariin ay ka timid dhinaca aqalkii sare goboladana fariin ka timid labadii fariin oo isku maqana warkoodii loo fadhiyo oo la sugayo haddaba marka la fiiriyo Jubbaland waxa ay tahay dhul aad u baaxad weyn laakiin barwaaqada taala ma tahay mid laga faa'iideystay masamaha arrimaha dib u heshiisiinta iyo dadka iyagu ishaya ee colaadda sokeeye ee dhex martay sida Soomaalida kale dib u heshiisin dhaba ma loo sameeyay oo dadku heshiis ma noqdeen oo wax wada qabsanayaan gobolada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe iyo Gedo oo 3 gobol oo Jubbaland ka kooban tahay bulshada ku dhaqan xiriirkoodu waa sidee maamulayaasha guud ahaanba ka jira 3 gobol isku si ma u soo dhaweynayaan maamulka guud ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland dhammaan su'aalahaasi jawaabo kala duwan ayay u baahan yihiin iyadoo qaar koodna siyaasiyiinta qaar ay ka jawaabayaan qaarna aan weli jawaab loo haynin haddaba mudane Cabdi Baaley Xuseen waxa uu yahay gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxa uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo suurtagal ayay u noqotay telefishinka caalamiga ee Universal inay xiriir la sameeyaan gudoomiye ku-xigeenka waxaa la weydiiyey su-aasha ku saabsan dhinaca dib u heshiisiinta dhinaca Jubbaland marka la fiiriyo iyo qaabka iyo sida wada shaqaynta wax wada qabsiga dadka iyo mucaarad iyo muxaafid iyo aragtidiisa mudane Cabdi Baaley Xuseen gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka Jubbaland waxa uu ku jawaabay waxaan dhammaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaba in wax la burburiyo ama wax la barabagaamo waxa ka fiican in wax la saxo Jubbaland horaan u sheegnay waxaanahay gudoomiyihii dib u heshiisiinta ee Jubbaland anigoo ku hadlaya magacii gudoomiyihii dib u heshiisiinta Jubbaland waxaan leeyahay gogashii nabadda wali way fidsan tahay cid kastoo wax tabanayso Jubbaland ha timaado waxa weeye waan dhageysanaynaa waxay tabanayso waa dhageysanaynaa waxaan leenahay soo dhawaada in wax la barabagaamo Soomaali baan nahay waa laga fiican yahay in wax la saxa ka fiican cid kasta ee doonaysa inay wax saxdana waan soo dhaweynaynaa kaale baan leenahay dhammaan madaxda Soomaaliyeed meel ka soo joogto ama heer dawladeed ama heer dawlad goboleedba waxaan leenahay Soomaali waxay u baahan tahay inay wada hadasho inay isu timaado inay isu tanaasusho in wax la iska sheegaa ama lisxanta waxa ka fiican in la wada hadlo gogashii wada hadalkana meel kasto ay Soomaali taala in la dhigo dadka Soomaali ugu sareeyo oo villa Soomaali jooga ayaga laga rabaa inay Soomaali ururiyaan isu keenaan wada hadal furaan waxaan leenahay ubadka iyo waalidku waxa weyn waalidka sabir baa laga rabaa dadka shacabka reer Jubbaland waxaan leeyahay nabadda aad haysataan labada gacmood ku sii qabsada horumarka aad hiigsanaysaan waxa weeye dadaalka aad ku jirtaan inaad sii wadaan in kula dardaarmaya cadawgiinana meel ugu soo wada jeesataan deegaanada maqana aad xoreysataan dadkiina iyo madaxdiinana inaad dhageysataan oo ayidaan intaasaan idinka codsanaya wabillahi tawfiiq wahagaag marka la fiiriyo Jubbaland asaaskeedii 2013 iyo magaalada Kismaayo ee lagu dhisay baarlamaankii ka koobnaa 75 xubnood ee rag iyo dumarka ayaa baarlamaanka howlihiisa waxa kamid ahaa qaybta ilaalinta nidaamka iyo shuruucda iyo guud ahaanba ansixinta iyo maalmarinta shuruucda kala duwan iyo dabcan la xisaabtanka xukuumadda Jubbaland ee markaas dhisan waxaa jiray xubno ka tirsanaa baarlamaankii xilligaasi oo iyagu isku dayay inay mooshin keenaan ka dhinaca golaha wasiirada iyadoo ay qiil uga dhigayaan la xisaabtan inuu jiro kadibna markaasi ay noqotay in la isqabsado xubnihii baarlamaankii arrinkaa ka dambeeyey waxay la kulmeen in xubnihii baarlamaannimada aysan meesha ku sii jirinin siyaabo kala duwan markaasi marka la fiiriyo iyo siyaabaha loo baahiyey oo qaabab kala duwan laga dhigay waxaa ka mid ahaa xildhibaanadii xilligaasi si aada uga qayb qaatay aasaaskii Jubbaland oo aad waqti ugu bixiyey mudane ka tirsanaa xilligaasi baarlamanka Jubbaland waa mudane
axmed cabdi xasan taajir waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho stuudiyaha telefishinka caalamiga ee universal marka hore waxaan weydiiyey mudane axmed taajir inuu ka waramo guud ahaanba aasaaskii dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaanu ku jawaabay mahadsanid cagmadhige bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah jubbaland waxay ahayd gobolladii dagaalada sokeeyey aada u halakeeyeen aada u saameeyeen uguna saameynta badnaa taasoo dhaxal siisay muxuu aha dhimasho iyo dhaawac iyo burbur lixaad leh eena ka dhaxleen iyo gacmihii dambe iskaga dambeeyey maxaakimtii iyo shabaab qorshihii dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya iyo dadaaladii dadweynaha reer jubbaland dal iyo dibadba iyo hiilkii dowladaha dariska iyo beesha caalamka ay la garab istaageen ayaa isbiirsaday waxaana ka dhashay dhismihii dowlad goboleedka jubbaland waxaa u dhintay dowlad goboleedka dhismaheeda dowlad goboleedka jubbaland una dhaawacmay dhalinyarada soomaaliyed oo curdun ah oo curan qaarkoodna markii xaaladooda caafimaad dalka wax lagu qaban waayo aniga shaksiyan aan dalka dibadiisa u qaaday kulana soo tacaalay caafimaadkooda dadka reer jubbaland mar qura ayay meelay joogaanba waxaa gashay rajo iyo idadiilo aad u weyn waxayna wax walba ku iloobeen inay heleen maamul ay iyagu leeyihiin waxayna ku tashadeen inayna garab istaagaan maamulkaa isaga ah maamulkaa curdunka ah waxayna u midoobeen dabeylihii siyaasadeed iyo mawjadihii siyaasadeed ee markaa ku furmay maamulkaa curdunka ee dhismay ee jubbaland ka hana qaaday wayna ka guuleysteen wax allaale wixii la doonayay in lagu carqaladay laguna hor istaago dhismaha maamul goboleedka jubbaland dadka shacabka reer jubbaland marka maxay ka filayeen dowladda maanta dhisantay iyo hanaanka dowladnimo ee ka hana qaaday deegaanadooda waxa ay ka filayeen inay helaan waxay ka mid ahayd mideynta shacabka reer jubbaland uga faa'iideynta khayraadka dabiiciga ilaahay ku manaystay deegaanada jubbaland oo dhan howlgelinta laamaha dawliga ee ku shaqeeya sinaan iyo cadaalad xaqiijinta amniga iyo adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha iyo garsoorka cadaaladda maadaama intaas o dhanba ay reer jubbalandba ay ku rajo weynaayeen in ayna ka heli doonaan maamulkan ay wada leeyihiin ay dhisteen ayna u hamuun qabeen runtii dowlad iyaga ay leeyihiin inay mar uun arkaan oo deegaanadooda xasilisa ko ma lagu guuleystay in la xasiliyo deegaanadii iyaga ahaa oo la xoreeyo jawaabta waa maya ma lagu guuleystay laamaha amniga inay shaqeeyaan oo sida garsoorkii cadaaladda iyo sinaanta ay shaqeyso jawaabta waa maya ma lagu guuleystay khayraadka dabiiciga ilaahay ku manaystay deegaanada jubbaland shacabka reer jubbaland in looga faa'iideeyo jawaabta waa maya marka waxaan u aragnaa annaga maamulkan hadda jira ee jubbaland ujeedkii loo aasaasay in uu hareer maray uu haddan uu ku socdo waddo khaldan una baahan yahay isbeddel dhaba oo la taaban karo shacabka reer jubbaland ay mudan yihiin inay helaan dowlad ay wada leeyihiin oo iyada u shaqeysa iyagana u shaqeysa ayna ka shaqeysanin ee iyaga u shaqeysa soomaaliya waxay ku mamahdaa aqoon la-aan abaarna ka daran mudane cabdi axmed cabdi xasan waxaad ahayd xildhibaan ka tirsanaa baarlamanka jubbaland iminka xildhibaan ma tihid arrinkaasina waxa uu ka dhacay magaalada kismaayo iyo muran dhex maray rag ka tirsanaa baarlamanka ood ka mid ahayd iyo weliba dhinaca maamulka sare ee jubbaland dadku markay xilkooda waayaan dhaliil ayay soo jeediyaan ama ha jirto ama yaanay jirin adigoo haddaba aan eegaynin inaadan maanta xildhibaan ahayn maxaa kalifay in xildhibaannimadaadii ay meesha ka baxdo adigoo sawir guud ka siinaya dadka ku dheehanaya arrintaas maxaad ka oran kartaa mahadsanid cagmadhige mar labaad baarlamaanka jubbaland wuxuu ka kooban yahay 75 xubnood oo xildhibaana oo laga soo doorto 15 degmo ee dowlad goboleedka jubbaland ay ka tirsan tahay ee saddexda gobol ee jubbada dhexe jubbada hoose iyo gobolka gedo xildhibaanada waa 73 waa rag saddexna waa dumar dhalinyaro dad waaweyn ba iskugu jiraan waana dad lasoo doortay oo ama lasoo xulay lagana soo xulay bulshadooda inay matalaan ku matalaan baarlamaankan dowlad goboleedka jubbaland xildhibaanka waxaa looga baahan yahay maxay tahay waa un saddex qodob matalaada shacabka sharci dejin iyo la xisaabtan dowladda ay la xisaabtamaan marka haddii baarlamaankan la doortay ee jubbaland ee dhisan ee hadda jira uu rabo inuu noqdo inuu baarlamaan dadka matala inuu yahay waa inuu runtii la xisaabtamaa dowladda maamulka markaa jira golihiisa fulinta sida wasiirada komishinadoo kale cid allaale cid ay la xisaabtami karaan oo ay rabaan inay u yeertaan ay u yeeran karaan sharcigana ay dejiyaan shacabka reer jubbalandna ay baahidooda ay ku matalaan deegaanada ay kasoo jeedaan baahidooda ay keenaan shacabkoodana ay sheegaan dhibaatooyinka ay qabaan annaga ka xildhibaan ahaan maadaamana loo igmaday inaan nahay sharci dejiyaal ee la xisaabtanka maamulka markaa jira iyo muxuu ahaa matalaada shacabka waxaan go-aansanay in aan sida dhabtaa u shaqeyno maadaama muddo aan iska fafadhinay lakiin haddana aan go-aansanay inaan si dhaba u shaqeyno oo aan la xisaabtano maamulka markaan ka jira dowladda goboleedka jubbaland
maamulkaasoo marka aan u arkaynay inuu wax badan khaldayey xildhibaano badan oo runtii isku fikir aan ahayn isku aragti aan ahayn ayaa jiray oo u arkayay maamulkan inuu waxyaaba badan ku khaldan yahay una baahan in lala xisaabtamo xildhibaanadii waxay qaateen go-aan waxay diyaariyeen qorshe lagula xisaabtamayo dowladda golaha wasiirada golaha fulinta ee dowlad goboleedka jubbaland sida wasiirada oo dhan loo yeero hal loogu yeero baarlamaanka la hor keeno su-aalo laga weydiiyo wasaaraddiisa waxay qabatay waxay qaban weysay caqabadaha hor yaallo maxay waxu qaban weysay budgetkii la siiyey ee dowladda annaga aan ansixinay ka baarlamaan ahaan xaguu geeyey xaggeese ku baxeen arrintaa markay dhacday oo la xisaabtankii aan soo wadnay oo wasaaradaha o dhan aan la soo xisaabtanay aragnay wasaaradaha jawaabahoodii qiimeyn ayaan sameynay qiimeynta ayaa waxaa nooga soo baxday inay golahan wasiirada aysan noqon karin golo wasiire ee ummadda soomaaliyeed ee shacabka reer jubbaland aan u shaqayn karin aynan ahayn kuwa qualified u ah ama kuf u ah inay matalaan shacabkan reer jubbaland maadaama serviceki looga baahna ama waxqabadka adeega bulsho looga baahna aysan haynin qaarkood ba xafiisaba aysan lahayn taada marka waxay keentay in baarlamaanka uu go-aansado inuu mooshin ka keeno xildhibaanada ay mooshinka aniga aan horkacayay oo aan ku jiray inaan mooshin qorno mooshinkaasu ahaa inaan codka kalsoonida kala noqono golaha fulinta ee dowlad goboleedka jubbaland arrintaa markay dhacday mooshinkii aan keennay mooshinkii waa la aqbalay waa la qabtay sharci buu maray sharci sida shacab waxayd 21 xildhibaan inay keenaan mooshinka golaha wasiirada 34 xildhibaan ayaa saxiixday mooshinka isaga ah oona rabay in loo codeeyo nasiib daro ma dhicin mooshinkii maalinkii la qabtay maalinkii labada maalinta ku xigtay baarlamaanka jubbaland ayaa la handaday xubno xildhibaano kamid a ayaa tviyada la keenay iyaga oo la jujuubayo la qasbayo laleeyahay been abuur baa la sameeyey dhaha waxay sameeyeen waa loo sameeyey idaacadaha laga wada daawaday kadib waxaa ku xigtay in la soo saaray warqad dikreeta ah oo guddoomiyaha iyo guddiga anshaxa ay ku seexan yihiin guddoomiyaha baarlamaanka u seexay sheekh cabdi oo laleeyahay xasaanada ayaa lagaga qaaday mudane xildhibaan axmed taajir oo xasaanadii baarlamaanka jubbaland ayaa kala noqday xasaanad kala noqoshada baarlamaanka xildhibaanka qodobka 7aad ee dastuurka jubbaland ayaa qeexaya sida loogala noqonayo qaabka loo noqonayo xeroosaadka dastuurka baarlamaanka jubbalandna ama loo yaqaan standing orderka wuu qeexaya qaabka uu xildhibaanka ku weyn kara xasaanadiisa labadaaba midna looma marin iyadoo sharci darra ah oo si sharci darra ah loo maray ayaa haddana waxaa ku xigtay in la yidhaahdo ha lasoo qabto ha lasoo xiro iyadoona haddana mar labaad ay tahay sharci darro iyadoo maxkamad warqad laga wadanin meelna warqad laga wadanin xasaanad aan leeyahay xildhibaan aan ahay ayaa taa loogu xadgudbay taasna soomaali oo dhan iyo shacabka reer jubbaland iyo beesha caalamka o dhanba way ka dhiidhiyeen waana la diiday waana laga hor yimid runtii shacabkii ka dhiidhiyey iyo dowladihii ka dhiidhiyey iyo dadkii ka dhiidhiyey o dhanna way ku mahadsan yihiin sharciga ayaana sareynaya shareynta sharciga inay shaqaysana mar walba muhiima wagaag mudane axmed taajir dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maamulayaashiisa sare waxay mar walba soo bandhigaan waxqabad la taaban karo oo aan ka dheehanay qalabka warbaahinta jaaliyadaha gudaha iyo dibadda ee jubbaland kulamo kala duwan ay qabteen waxay ku muujiyaan mahadcelin ay u jeedinayaan maamulkooda miyaan la odhan karin jubbaland dhaliil way yeelan kartaa laakiin wax badan oo badan ayay bulshadeeda u qabatay dhinaca kalese ma isleedahay in laga faa'iidaystay khayraadkii guud ahaanba jubbooyinka looga bartay arrintaas maxaad ku fasiri kartaa walaalkii cagmadhigow qofka bini aadanka waxa uu sheegayo soomali waxay tiradaa sadar muuqda su-aal ka dheer waxa ani aan sheegaya qowlkeyga ficilkeyga waa inuu is yeesho haddii ay jubbaland barwaaqo tahay waxa maanta loo qaylinayo ama shacab garbaharre u qaylinayaan ama kuwa baar dheere ama kuwa afmadow ama kuwa dhoobley maynan qayliyeen maynan hadleen siyaasiyiintan hadlaysa qaylinaysa meel walba taagan maynan qayliyeen cid hadli laheed ma jirto haddii barwaaqada ay jirto ay dhab tahay kismaayo laga garan lahaa maamulka 40 kilomitr dhaafila ee kismaayo fadhiya magaalada kismaayo ayaa maalin walba gadood ka jira ciidanka mushaar la-aana shirar baa la qabanaya 24 sac oo ujeedo laga leeyahay aan garanayn aniga lacago badan lagu bixinayo iyadoo isla markaana shaqaalihii rayidka ahaa iyo ciidamadii reer jubbalandba ay mushaar aysan haysan 7 bilood ay mushaar qaadan baarlamaanka jubbaland 6 bilood mushaar ma uusan qaadan wasiirada waa la mid marka barwaaqada jirta xagee taalla haddii marka intaasoo dhibaato ay taagan tahay oo maalinba ciidan gadoodaya kismaayo markhaataan ka wada nahay in habeen iyo maalinba ciidan gadoodayaan in maalin ciidan la weeraray BTN lagu weeraray waa ciidamo gadoodo cabanaya in la weerar xaq looma lahayn in la soo celiyaad waayo waxa ay tabanayaan in la dul istaago oo la yiraahdo waxa aad tabanaysaan waxba laga qabanaya laakiin in la awood iyo lagu muquuniyo oo kaliya talisnimo meesha ay ka jirto oo dadka la muquuniyo la cabsi gelinayo caburin ay jirto xuriyatul qowl uusan jirin taa ayaa keenaysa marka daliil u ah waxa maamulka uu sheeganayo barwaaqada uu sheeganayo hadii barwaaqo jirto cidna ma hadasho laban isma weydiisay agmadhigo waxaan rabaa inaan ku daro kale
jubbaland inay leedahay daisaan ku sheegay beere iyo azindooyin iyo adduun iyo muxuu ahaa oona la beeri karay mooska iyo cambaha iyo babayga iyo liinta iyo mambelmada fruudka noociisa kala duwan taasoo dalka dibadiisa loo dhoofin karay lagana aanan ka heli karin lacag adag oo runtii wax badan tari lahayd taa bedelkeeda jubbaland maxaa ka socda waxaa ka socda xaalufin deegaan baa ka socota dhoofinta dhuxusha dhoofinaya ka socota taasoo macnaha runtii deegaanka ku ah dhibaato aad iyo aad u weyn guddiga khayraadka baarlamaanka warbixino ayay wadaan oo xaalufinta ku saabsan beesha caalamka iyo UN hore u mamnuucday in dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya dowladda federaalka ee dowladdii Xasan Sheekh baarlamaankii sagaalaad wuu mamnuucay muxuu ahaa dhoofinta dhuxusha weli way socotaa marka maadaama deegaanada la xaalufinayo yihiin deegaanada anagu aan leenahay waxyaabaha maamulkan aan ku dhaliilayno ama aan kaga hor imanayno oo mar walban u taagannahay oon isku qabanayna ee ka mid tahay war deegaankan yaan la xaalufinin aan dhulkeena xoreysano beeraheenna azindooyinkeena aan beerano aan dalka dhoofino waxaa ku dheer dhulkan wuxuu qani ku yahay xoolaha gobolkan jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gadabo waxay xoolaha nool bay qani ku yihiin xoolaha la dhoofin karaa anagoo dhoofin karna xoolihii dhoofin karna sokortii iyo cambihii babaygii iyo mooskii ayaan maanta waxaa badiilkeedii ah in dalka laga dhoofinayo keliya muxuu ahaa dhuxul deegaanka lagu xaalufiyey lagu ciribtiray muxuu ahaa keemihii aad taqaanay deegaanka joore loo yaqaanay maanta waa lama degaan waa saxaro waxaa ku nool ugaar aad u tira badan dhinaca Kenya ayay wada galeen wada carareen iyo wax la dilay noqotay runtii deegaanka dhibaato lagu hayo dhibaato yar ma aha marka annaga waxaan codsanaynaa mar walbo in la joojiyo xaalufinta lagu hayo deegaankan oo deegaankan dadka loo jiheeyo beerahooda iyo khayraadkooda inay ka faa'iidaystaan halkaasna ay lacag adag ka soo gasho si ummadda dhaqaale macno leh oo kobcon oo dhaqaale macno leh oo la taaban karo ka soo baxo aad baa u mahadsantahay wahagaag ugu dambaystii axmed fariintaada ugu dambaysa ee ku aadan guud ahaanba bulshaweynta Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland kuwa gudaha iyo dibaddu maxay tahay agmadhigo fariinta aan aniga u diray shacabka reer Jubbaland waxay tahay in la sabro wax yar ayaa dhiman anaga waxaan doonaynaa waxa weeye maamulkan Jubbaland inuu dumo marna diyaar uma nihin inuu maamulka naga kala tagana marna diyaar uma nihin waxaan rabnaa maamulka Jubbaland oo jiro oo dhisan systemkan dhisan inaan ku gaarno system kale inay meesha doorasho xalaal ka dhacdo oo xaqa oo xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland lagu soo doortay xaqa odayaashooda ay soo qortaan ee noqon kuwa la soo doortay oo la soo jujuubay ama uu nin iska keensaday taa ayaan u diraya waxaan leeyahay kale shacabka reer Jubbaland mar walba waxaad ka shaqeysaan xasiloonida iyo nabadda iyo xasiloonida aan haysano wax lagu ciyaari karo ma aha dhiig badan baa u daatay waa inaan mar walba aan ka foojignaano wax kasta oo keeni kara dil iyo dhac iyo kufsi iyo boob iyo kala fogaansho iyo ummadda isku dhacda waxaan raadinaa anaga waxaa weeye maamulkan fashilmay inaan bedelno sidii lagu bedeli lahayn ay tahay wadada kaliya lagu bedelo doorasho xaq xalaal inay ka dhacdo maamulka dowlad goboleedka Jubbaland taa ayaa marka waxaan leeyahay inaan marnaba laga shaqeynin wax allaala wixii hagardaamo ku keeni kara ama ka hor iman kara nidaamkan maanta noo geeleysan wax yeeli kara ama dhaawici kara inaan ka fogaano inaan mar walba u istaagno inaan garbaha isqabsano mid ahaano annaga oo mid ah oo shacabka reer Jubbaland aan ka wada shaqeyno kow deegaanada naga maqan in la xoreeyo aad iyo aad buu u mahadsan yahay mudane axmed cabdi xasan taajir oo isagu ka mid a siyaasiyiinta reer Jubbaland xildhibaan horena ahaa jiray barnaamijkana ka qayb ahaa dhammaan jawaabaha uu bixiyana ay yihiin kuwa isaga aragtidiisa ee uu ka qabo guud ahaanba dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe oo ah madaxweynaha iminka ayaa waxa uu tegey qaybo ka mid a deegaanada kala duwan ee Jubbaland si uu u xoogaalsado guud ahaanba xaaladaha nolosha xagga hadday tahay nabadgelyada xagga waxbarashada xagga caafimaadka iyo nolosha guudba taasi waa howl maalmeedkiisa iyadoo weliba ay ahayd muddadii xilka uu hayay meelihii uu tegay ay ka mid ahaayeen gobolka Gedo sida degmada Beled Xaawo iyo weliba Doolow oo uu maalmo badan halkaasi uu waqti siiyey haddaba su'aal ayaa jirta ah dadka reer Garbaharey maxay uga duwan yihiin dadka degan Beled Xaawo iyo Doolow dabcan marka la yiri Jubbaland waxay ka kooban tahay gobolka Gedo gobolka Jubbada Dhexe iyo gobolka Jubbada Hoose maamulayaasha sare ama hoggaanka sare ee Jubbaland reer Gedo waa ka qayb oo madaxweyne ku-xigeenka koobaad mudane maxamuud sayid axmed sayid aadan waxa uu ka soo jeedaa gobolka Gedo madaxweyne ku-xigeenka labaad mudane cabdulqaadir waxa uu ka soo jeedaa gobolka Jubbada Hoose dabcan xildhibaanada baarlamanka iyo golaha wasiiraduna dhammaan deegaanada kala duwan ayay ka soo jeedaan haddii reer Gedo ay yihiin madaxweyne ku-xigeenkii koobaad xubnihii dhammaa ee dhinaca baarlamaanka iyo wasiirada iyo ku jiraan iyo maamulkii guud ahaan maxay tabanayaan
toddobaadkan ayay ahayd magaalada garbaharey bannaankeeda iyo agagaarka eeraboorka magaalada garbaharey inay dad badani isugu soo baxeen waxa ay diidan yihiin safar la sheegay in madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe uu ku tegi lahaa magaalada garbaharey oo ay leeyihiin nalooma iman karo arrinkaasi waa arrin u baahan in la ogaado sababtu waxa ay tahay hadday tahay dhinaca jubbaland maamulka sare iyo haddii ay tahay dhinaca gobolka gado iyo maamulayaashii sare bal markan aynu daawanno dadka reer garbaharey tabashadooda iyo issoo baxoodii siduu ahaa waxaan halkaan fariin iyo baaq uga diraynaa shacabkii reer garbaharey waa ujeedaa waxay hor taagan yihiin garoonkii diyaaradaha ee degmada garbaharey waxaan baaq u diraynaa annagu colaadeed oo la taagannahay inaan ka xigno colaad inay axmed madoobe iyo wafdiga uu hogaaminayo ay garoonka aan hor taagannahay maanta ay ka soo degaan aan taagannahay waa barkontarool ku dhow garoonka diyaaradaha degmada garbaharey ujeeddada maanta halkaan isugu soo baxay ee loo taaganya waxay tahay bulshada inay shucuurteeda ku muujiso amarna ay u dirto baaq ma aha codsina ma ahan cabashana ma ahan wax hamiya uusan ka soo geli karin gobolka gado wax hamiya inuusan ka soo geli karin macnuhu wuxuu yahay 7 sano nin jiro weligay aanay taakulayn wax maartaaye wax qabad oo gobolkan uu ku yeesheen aan jirin maanta asagu nafta hayso inuu ku soo caariyo oo cidduu xiriirka u jaray ku adkaysay caariga ma doonayno garbaharey inay amni tahay shacabkan ay xuraysteen reegada ayaga ay isku tashteen deegaankooda iyo dadkooda ayaga ay xuraysteen waxaa weeye caalamka markhaati ka ah macnaha ma jirto jubbaland ee matalan maaragtaaye xurayn u samaysay bal weliba waxaan aaminsanay inay dib u dhigeen tuulooyinkii iyo markii 7 degmo la xoreeyey sidaa darteed maanta oon garan karno wakhtiga iyo maandhaydka u dhiman axmed madoobe ma garan karno sabab uu garbaharey ka soo doono waayo wakhtiyaal badan oo aan u baahnaynay oo aan sugaynay oo aan codsanaynay oo aan shacabkiisii iyo maamulkiisii aan ahaynay yuuna diidey hadduuna diiday annagana maanta waa diidday waxaa weeye waxaan rabnaa dawladnimo waxaa jirto shacabka jubbaland wax badan bay ka hadleen maxaa la dhihi jiray dhibaatada haysato wax badan bay ka hadleen cunshuriyadda wax badan bay ka hadleen dhibaatada haysato weli ma dhicin maamulka jubbaland qof ka mid ah oo hadlo oo ka hadlo dhaliisha ay leedahay jubbaland ay yidhaahdo waxaa ka jira guddoomiyaha degmada baardheere waad ogtihiin dhaliishii buu ka hadlay waxaa looga yeeray degmada kismaayo al'aana kismaayo ku xidhan yihin waxaa weeye marka annaga marka maamulka jubbaland madaxweynaha waxa ka hooseeyo waxa ay u sheegi laayihiin dhibaatada haysato waa ama xil ama lagaa qaadaa ama kismaayo lagugu xidhaa annaga marka saaka in lagu xidho kismaayo iyo in xilna laga qaado midnaba aanan dan ka lahay inay guryaha ka soo baxaan ala rabaa mishaar kuma qaataan xaquuqdoodii lagu dhinsaday kismaayo inay ka hadlaan ayagaa la rabaa derbiyaasha aysan ku dhuuman maamulkii aad ka gabanayseenna waa kan idin hor socda waxaan u jahaysannahay inaan la wada dirirno maamulka jubbaland aan la dirirayna markaan leenahay annagaa xil u hayna barasaab ku-xigeenna guddoomiye ku-xigeenna intaba waa nahay waxaanna ka wayni wax faa'iida ah wax faa'iidaan ka wayni waxaan rabnaa marka in loo istaaga cidda dawladda soomaaliya diidana ayadana waa shabaab in la diido waa qabnaa wahagaag marka la fiiriyo hoggaanka sare ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mucaarad iyo muxaafidba way leeyihiin maamulayaasha sare hadday tahay dhinaca xildhibaanada iyo dhinaca golaha wasiiraduba waxay dhowr jeer ku baaqeen ciddii wax tabanaysa ee reer jubbalanda in ay iman karto oo ay tabashadeeda sheegi karto lana dhegaysanayo lagana garbaxayo taasoo ah fursad la siinayo qof kasta oo mucaarad ah haddii uu joogo gudaha iyo haddii uu dibadda jooga ee jubbaland markaasi isagu ka soo jeeda xildhibaan cusmaan xuseen bistolo waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamanka jubbaland isagoo ku sugan magaalada kismaayo ayaan xiriir la samaynay waxaana aan weydiinay arrinta ku saabsan soo dhoweynta dadka mucaaradka ah iyo laxaalkooda iyo sida amuuruhu ay yihiin xildhibaan cusmaan xuseen bistolo waxa uu yidhi walle baarlamaanka jubbaland inkastoo wakhtigiisa hadda uu ka dhiman yahay ilaa muddo 4 bilood 5 bilood ah muxuu ahaa dhowaana ay doorasho geli doonaan waxyaabo badan oo shuruuc ahaan hore u marinay muxuu ahaa waxaana filaynaa muxuu ahaa hadda dhowr bilood oo kadib in muxuu ahaa baarlamaan cusub oo muxuu ahaa kii hore bedela in lasoo dooran doono jubbaland ahaa odayaasha dhaqanka iyo habka doorashada ay u dhacayso ninkii soo noqda iyo ninkii kaleba 75 xildhibaan bay muxuu ahaa jubbaland leedahay oo horumar ka sameeyey oo ka qayb qaatay horumarinta iyo siyaasadda jubbaland
muxuu ahaa aad baan ugu faraxsanahay in muxuu ahaa waxqabadka ay qabteen xildhibaanada hadda waqtigooda sii dhammaanayo dadka oo muxuu ahaa mucaaradka ama meelaha ka hadla Jubbaland doorashay gelaysaa horta xaqiiqdii waxqabadka ay qabateen ummadda Soomaaliyeed Jubbaland horta waxa weeye maamul goboleedyada kale waxay kaga duwan tahay Soomaali weyn baa degan hal beel oo Soomaali ah oo 4.5 ama shanta beel la leeyahay shanta xubnood markii Soomaali loo qaybanayo oo loo wada degan yihiin xubnay ku yihiin wasiiray ku leeyihiin baarlamaanay ku leeyihiin wasiir ku xigeenay ku leeyihiin waxqabadkana isku duubnaanta iyo amniga maanta ka sameeyay yaalo caasimada ku meel gaarka ummadda Ilaahayna way u jeeday horumarka aan sameeynay iyo waxa lagu talaabsaday ilaa iyo maanta buundada araare ee jamaam ay ciidamada Jubbaland ku sugan yihiin ayagoo ciidamada sheela socon kaligood ana is abaabulay ayagaana wax qabsaday marka dadka mucaaradka ah waxa weeye waqtigoodii markii la gaaro ninkii u tartamaya kursi waa diyaar laakiin ummadii hadda iyadoo habaysan oo Jubbaland midnimadeeda iyo nabadgelyada ay taam tahay in shakhsi intuu meel istaago Jubbaland waasan waxaan u maleynayaa in laga fiican yahay doorashada baarlamaankana way dhacaysaa tan madaxweynahana way dhacaysaa tan doorashada baarlamaankana waxay ku aadan tahay 4 bisha April 2019 muxuu ahaa baarlamaanka la bedelayaa tan madaxweynahana 2019 bisha 8 marka in muxuu ahaa nidaamkii Jubbaland ka jiray in muxuu ahaa iyadoo waqtigeeda la gaarin dad ay dacayada iyo warxun ay meelaha ka fidiyaan waa laga fiican yahay Jubbaland ninkii wax ka tabanaya yimaado doorashaha ka qayb galo asagoo nidaamsan oo Soomaalinimo u hadlaya oo muxuu cidna aan riixaynin marka waxaan leeyahay dadka meelaha ka hadlaya ha yimaadaan Jubbaland doorashaha ka qayb galaan baarlamaanka ka qayb galaan ninkii baarlamaan raba ninkii musharax madaxweynahana xilligii ay tahay oo hadda aan ku dhawaan muxuu ay caamadaysan tahay oo baarlamaanka hore u sharciyay ha yimaado wassalaamu calaykum wagaag aad buu u mahadsan yahay xildhibaan Cusmaan Xuseen Bistolo oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo ka hadlaya guud ahaanba qaabka doorashooyinka iyo waliba sida ay tahay in gogol loo fidinayo cid kasta oo wax tabanaysa oo ka tirsan bulshada ka soo jeeda Jubbaland daawadayaal Jubbaland marka la fiiriyo intii ay dawladnimadii Soomaaliya ee dhexe ay jirtay waxa uu ahaa dhul aad u barwaaqo ah marka la fiiriyo gobolka Jubbada Hoose gobolka Jubbada Dhexe iyo waliba gobolka Gedo xagga beerashada iyo webiga Jubba marka la fiiriyo magaalada Kismaayo waxa ku yeelay warshado waaweyn oo ay dadku si aad u xusuusan karaan warshadii dhinaca hilibka waxa kale dadku xusuusan karaan warshadii sokorta ee Mareerey ee ku tiilay Jubbada Dhexe dabcan dhinaca beerashada iyo dhinaca xoolaha aad iyo aad ayay dadku uga faa'iideysteen haday yihiin kuwa degan iyagu markaasi jubbooyinka ilaa Gedo iyo hadii ay yihiin kuwa aan deganayn ee iyagu u shaqo tagay ama iyagu noqday kuwa beeraley ka noqday ama noqday kuwa kalluumaysato ka noqday marka la fiiriyo dadka deegaanadaasi degan waxay ahaayeen dad aad u nabdoon oo aan dhibaatada jecelayn laakiin kuwada noolaa mar walba darisnimo wanaag oo ah dad isjecel xagga xoolaha iyo xagga beeraha marka la fiiriyo iyo waliba dhinaca kalluumaysiga laakiin intii colaadaha sokeeye ay jireen gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo dhibaato xoog leh ayay mudatay tan iyo 1991 oo ay dad kala duwan ku dagaalameen iyadoo dabcan sababta Kismaayo loogu dagaalamayo ay dad badan u fasireen oo dadka aqoonta u leeyahay inay istiraatiiji ay tahay goobtu dhulkuna uu dhul barwaaqo yahay ilaahayna uu ku manaystay ma sha Allah xagga kalluumaysiga xeeb dheer ayay leedahay guud ahaanba Jubbada Hoose iyo Kismaayo marka la fiiriyo xagga beerashada waa dhul aad u barwaaqo ah oo aad la socotaan dalagyada kala duwan ee ka baxa inay yihiin kuwa dalka markii lagu baahiyo dadku iibsadaan oo ay ku noolaadaan kadib dibadaha loo iibgeyn jiray waxaa jira xagga xoolo dhaqashada oo ilaa xuduudda Kenya ilaa dhinacan marka la fiiriyo Ethiopia ay dhammaan ay ahaayeen ilaa Shabeellada Hoose iyo Bay xuduudaha ay la lahaa karaan in goboladaasi ay yihiin gobollo aad u barwaaqaysan ka qayb qaata barnaamijkan fikirkiina fayow ka dhiibta laynka telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh عليكم السلام walaal oo ku soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid magacayga waxaa la dhahaa walaal cabdikariim baa la dhahaa waxaan joogaa Mareykanka soo dhawow waan ku soo dhaweynaya cabdikariim barnaamijka haddii aad daawanaysay dad kala duwan baa ka qayb galay qaar muxaafada iyo qaar mucaarada maxaa kaaga baxay awal horta mahadsan tahay aad baan kaaga mahadcelinaynaa walaal barnaamijka isaad nooga soo bandhigtay jazaaka allah khayr barnaamijka waxaa iga baxay awalan Axmed Madoobe iyo maamulka Kismaayo ka dhisan ummaddu rajo weyn bay ka qabtay Axmed Madoobe
weliba khudbadihiisa aan dhegaysan jirnay in badan waxaa ku jiri jirtay in uu isagu uu ka soo horjeedi jiray federaal wax la dhaho oo uu aaminsanaa dowlad dhexe oo awood leh. haddana waxaa nooga baxay axmed madoobe inuu noqday ninka ugu horeeya oo dowlad dhexe oo awood leh inay dhisanto la dagaalamaya. waxaan arkayaa oo aan noo muuqanaya in uu qarannimadii ummadda halkaa i jooji. adigu maraykan baad joogtaa, jubbaland ma aadan tegin dabcan, haddii aad tagtana adaa caddayn doona. maxaad ku caddayn kartaa arrintaa iyada ah? miyaad adigu aad xoogaal tahay ood dhulkii tagtay, mase hadallada meelaha lagu qora un baad tix raacaysaa saaxiib? anigu dhulkana waa tegey waana dhegaystay, anaa dhegaystay isagoo leh dadka aaminsan federaalka miihi ee dowlad dhexe oo awood leh baan aaminsanahay baan anuu dhegaystay. magar laakiin soo mowqifkaas weli kuma taagnaa karo, maxaa diidaya? waxaa diidaya arrintaas oo diidaya arrinta uu hadda uu samaynayo oo ah in madaxweynihii ummadda ee soomaaliya markii uu soo magacaabay taliye ciidan uu soo magacaabay in uu ka celiyey airboortka uu ka celiyey. taasaa waxay muujinaysaa inuusan doonayn dowlad dhexe oo awood leh axmed madoobe. laakiin haddaad wararka dheehatay taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeyagaas indho qarsho iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada kismaayo, oo weliba uu ka hortegey janan ka mid a jananada soomaaliyeed oo dhuumaha lagu magacaabo. arrintaa ma la socotaa? arrintaas waa la socdaa, laakiin waxaa ka horreysay arrintaa in uu ka celiyey airboortka. arrintaas waxa ay noogu beertay yacniga dhaawac xun ayay noogu beertay, sumcad xumo, ixtiraam daro oo dowladdii soomaaliya ahayd. taas waa mid. tan kaleeto wuxuu abaabulay oo u abaabulay in maamul goboleedyadii uu isku geeyo oo uu soo saaro bayaano yacniga ku dhibbi ah oo kasoo horjeeda dowladda soomaaliya oo kula dagaalamayo uu ku burburinayo. aada umahadsantaa. laakiin dowlad goboleedyadu kismaayo keliya ma tegin, baydhabana way tageen, halka la yidhaahdo garowena way tageen, waxay kaloo sheegteen in samareeb tegi doonaan. marka maxaa kismaayo ku gaara ugu dambaysta anoo fursad ku siinaya? waxaa kismaayo ku gaar ah axmed madoobe oo si gaara aan ugu tuhmaynaa waa 2 jeer buu horta meeshaas ay ka dhacday. isaga waxaanu anagu u haysanay oo yacni dadka soomaaliyeed ay ka qabeen oo ka aaminsanayeen inuu yahay nin watani ah oo waxa weeye doonaya dowlad soomaaliyeed oo awood leh inay soo noqoto. haddana waxaa noo soo baxday axmed madoobe inuu yahay caqabadda ugu weyn oo ummadda soomaaliyeed burburinaysa. taasaan waa fikirkaaga, waa kuu mahad celinaya, waana kusoo dhaweynaya. waa fikirkaaga gaarka ku ah. laynka kale ee telefoonka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal waa kusoo dhaweynaya, magacaaga iyo halkaad joogtid. sheekh maxamed wey hoolan baan kaasoo wacaya cagma dhiga. waa ku salaamay adiga iyo ummadda soomaaliyeed ku daawanayso. adigana waa kusoo dhaweynaynaa. haddaad barnaamijka daawanaysay dad kala duwan baa ka qayb galay, arrinka jubbaland baa laga hadlayey. waa sidee xaalkaasi? xaalkaygu waxaan rabaa inta aanan fikradayda dhiiban in aan aragtidayda ka dhiibto ninkii baarlamaanka madaxdu ahaayo u horreeyey hadalkiisii ee uu lahaa waxaan diyaar u nahay dib u heshiisiin oo aanu qof kasta oo ka tirsan jubbaland in aan kusoo dhaweynayno kismaayo. taa waxaa marka diidayso jubbaland waa maamul goboleedka keliya ee soomaaliya ee qof uusan caaradi karin axmed madoobe. laakiin sheekh taa anagu ma hayno, meelay ku qoran taha ma hayno. waa la mucaaradi karaa oo haddaba barnaamijka waxaa igala qayb galay nin dhallinyaraah aqoon-yahana oo ka hadlaya dhaliilo badan. dabcan arrintaa maxaa diidaya? miyaan la mucaaradi karin? muxuu uga duwan yahay dadka kale? wuxuu uga duwan yahay wuu ku xirahayaa wuuna ku dilahayaa. meesha dhegeyso cagma dhiga hadalka ii yara sug. meesha gobolka keli dowlad goboleedka keliya ee baarlamaan laga soo tarxiilay weeye, lana xiray. anugu gobolkaasaan kasoo jeeda, waan xoogaal baan u ahay. axmed madoobe adoo raalliya
guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka cabdi baaley xuseen wuxuu yidhi waxaan ahay guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta. dabcan dib u heshiisiin marka la yidhaahdo qasab maaha in kismaayo keliya la isugu tago. soomaaliya magaalooyin badan baa ku yaala. haddii dadka ishaya ee dhinaca jubbaland ay magaalo kale ku kulmayaan oo la heshiisiinayo miyaanay dhici karin arrintaasi? waxay dhici kardhaa waana abuuris baa ka horreysaa la yidhi. axmed madoobe wuxuu la mid yahay waqooyiga kuuriya ninka madaxda ka taa ma dhihi karno sheikow raalli ahow, taa ma dhihi karno sababtoo ah jubbaland waxay ka mid tahay iyo maamulkeeduba maamul goboleedyada kala duwan. dabcan muxaafid iyo mucaaradba waa jira, meel kasta oo adduunka ah mucaarad iyo muxaafid baa jira. laakiin annagu waxaanu fiirinaynaa hadalka mas-uuliyiinta. guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka waad maqlaysa cabdi baaley, cismaan bistolo xildhibaanka waad maqlaysay. waxay jecel yihiin cid kasta oo mucaarada in lala hadlo. ugu dambaystii miyaadan ogolayn in la wada hadlo? waxa weeyaan hadalka waxaa ka horeeyo meesha la yidhaahda garowe waxaad ka helaysaa dad ama odayaal dhaqan ha ahaadeen ama baarlamaan ha ahaadeen ama dhallinyaro ha ahaadeen ama haween caaradaha iyo cabdiweli gaas baad soo helaysaa. cadaadi iyo dhuusamareeb waxaad ka soo helaysaa sidaasoo kale. jawhar waxaad ka soo helaysaa sidaasoo kale. baydhabo sidaasoo kale. bal adigu adiga difaacaya waxaad soo heshaa hal qof oo inta mikrofon qaatay axmed madoobe caarada hayo oo aan ka ahayn gobol asaguna uu xukun sida gobolka gado oo kaleeto. aad baad u mahadsan tahay. fursad ayaan ku siiyey. dabcan barnaamijyo kalena waad igala qayb geli doontaa universal t v stuudia london iyo barnaamijkeena dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland. laynka kale ee telefoonka. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. halo asalaamu calaykum. halo asalaamu calaykum. waalaikum salaam. ha waa ku soo dhaweynaya walaal, magacaaga halkaad joogtid? magacaygu waa yuusuf sheekh moxamed oo jooga dalka koonfur africa. soo dhawow yuusuf, sideed u aragtaa dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo laga sheekeynayey qaab ahaan, siyaasad ahaan iyo nidaam ahaan wixii lasoo maray oo la tilmaamay iyo doorashooyinka soo socda iyo dib u heshiisiinta iyo arrimaha? wallahi aad iyo aada umahadsan tahay cagmadhiga. markastana waxaan kaaga mahad celinayaa markasta xaaladda oo dalka ku sugan yahay sida aada noola socodsiiso. barnaamijkana waa barnaamij aan aada ugu taxanahay khaasatan reer koonfur africa oo aan aada uga wada helno. markaan xaaladda iyo jubbaland aan fikirkeyga ka dhigtay waxay ila tahay maamulka jubbaland kolley waa maamul soomaaliyeed oo soo dhismay. wax badanna wuu qabtay, wax badanna waxaan isleeyahay inay ka dhiman yihiin. laakiin dhanka siyaasadda markaa fiiriso iyo sida dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay isku yihiin ayaad moodaa in shacabka haddaana aan aada u yacni saluugsanahay markaa fiiriso oo shirarkii kismaayo ka dhici jiray oo garow ka dhacayay oo dadka ay aada ugu yacni u hadal hayeen oo laga soo saari jiray waxyaaba dawladda dhexe kasoo horjeeda. taasoo ku tusinaysa dalka inay tafaraaruq iyo waxaas ay ku horseedayso. laakiin maanta ay u muuqato maamul goboleedyadii shirkii kismaayo ugu horreysa lagu dhisay golaha iskaashiga inay sii daciifayaan. marka waxaan isleeyahay kulley isbedel uu imaan doonaa. iyaguna madaxweynaha hadda talada haya sheekh axmed islaam intuu soo qabtana waa ku mahadsan yahay. waxaan isleeyahay in maamulada dhammaan ay isbedel u baahan yihiin oo dhiig cusub shaqooyinkii hore u socday dad hore u wada dawladda dhexe la shaqayn kara ayay ataani. waa hagaag. taasi waxay ku xiran tahay xildhibaanada guud ahaanba maamul goboleedyada iyo qaabkay u shiraan iyo siday wax u doortaan. waa kuu mahad celinaya. daawadayaal barnaamijkeena waa gabagabo. laynka ugu dambeeya telefonka. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. halo. wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu. ha waa kusoo dhaweynaya walaal, magacaaga halkaad joogtid? magacayga racwi baa la dhahaa, waxaan joogaa london. soo dhawow racwi. haddaa barnaamijka la socotay jubbaland baa laga hadlayay mucaarad iyo muxaafidba. waa sidee fikirkaagu adigu? walaalo cagmadhiga t v-gaan raba ii gudbi. ha isagii baa kula hadlaya racwi, isagii baa kula hadlaya. telefoonka igala soco. ha xaqiiqan waa ku mahadsantaha horta teleefonkayga aada iga qabateen. waana idin salaamayaa bahda universal t v. si fiican. bulshada soomaaliyeed waxyaalaha jiro aada noo soo bandhigtaanna waa idinkaga mahad celinaynaa. si fiican. walaalkiis waxaan ka mid ahay mujtamaca ku abtirsada soomaaliyeeda gobolkaas gobolada ah. si fiican. marka inkastoonan kusoo korin oo aanan dhalasho ahaan xataa aanan ku dhalanin, laakiin dee waatan arrintiisaa iska noqotay alxamdulilah calaa kulli xaal. si fiican.
rabay arkayay dhegaysanayay magacii baa ii gooyey wadaadkii waxaan u malaynayaa inuu ahaa dib u heshiisiinta qaabilsanaa ha waxa weeye guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka haddaad u jeedid waxaa la yidhaha cabdi baaley xuseen xaqiiqha waxaan rabaa inaan ka hadlo 4 qodob oo ugu horeeya dib u heshiisiinta hadday ii suurowdo waqtiga adoo soo koobaya ha waqtiga oo gabagaba adoo soo koobaya racwi ereyga difaaca xaalafinta dib u heshiisiinta caburinta intaas hadday haddii anyway aan dul maro walaalow horta ereyga dib u heshiisiin waa erey sidayda ani ahaan shaksiyan dad badanna ila qabaan erey khaldan weeye soomaali meel kastay joogto dhib waana gaaray laakiin wax dhibaataa oo maalinka maanta ana dhex yaala ma jiraan waa gartay maraas casay maraas kabooni soomaali waa mid qofkii qof dilana waa qof walba qofka kale dilaya waa la iswada dharbaaxaya haddana waa laga wada heshiisiya qofaan dhib gaarina ma jirto taasi meesha uga bax ta kale anagu uma baahnin ta kale tan xigta caburinta waxaan markhaati ka ahaa oon xaadir ka ahaa gurigayga 2 nin oo joogto mid maqan iyo mid joogo telefoon isu diraya wiil baarlamaanka ku jira uu yidhi Jubbaland ma hadli karo sababtoo ah waxaana la yidhi haddaad isku daydaan dhaqdhaqaaq laakiin racwiyey gurigaas telefoonka laga hadlayey in laga hadlayey gobolada kale iyo degmooyinka kale anagu ma xaqiijin karno 2 qof uun baa wada hadlaysay anaa taagnaa walaal laakiin midda ugu dambaysa haddaad ii sheegi kartid dhinaca barwaaqada iyo guud ahaanba deegaanka ka waran iyo xaalufinta okay walaalkay xaalufinta dhulkaas wuxuu ahaa dhul aad barwaaqo ah Soomaali markay isceyrsatay dadkii sii maray baan ku jiray harka cadli baa baawurka nagala degi jiray maraan ku noqday 2007 wuxuu ahaa deegaan lama degaan buu noqday taana markaasi ka markay xigta difaaca soo haray difaacu Kismaayo ma aha magaalooyinku isma gudbi karaan askartu dhaqaale ku filan ma haysato maxaan ku dhahaa hawlgal iyo hami ma jiro magaalooyinka uu booqday madaxweynaha Ahmed waxay ahaayeen magaalooyin ragga joogana ay amar ka qaataan maxaan ku dhahaa dadka deegaankuna aysan awood lahayn ay ku hadli karaan taa ana kaaga marqaatiya aad baad u mahadsan tahay racwi fursadaan ku siiyey dabcan barnaamijyo kale aad iga qayb geli doontaa iyadoo barnaamijku uu gabagaba yahay daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo guud ahaanba barnaamijkii ku saabsanaa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaan si gaar ugu mahad celinayaa dadka igala qayb galay gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka Jubbaland Cabdi Baaley Xuseen iyo waliba xildhibaan Cusmaan Xuseen Bistolo oo ku sugnaa magaalada Kismaayo waxaan kaloo u mahad celinayaa mudane Axmed Cabdi Xasan Taajir oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaan kaloo u mahad celinayaa dadka kale ee barnaamijka ka qayb qaatay la soo hadlay telefishinka Universal waxaan ka raali gelinayaa kuwa kale aan fursadda aan helin biidnillahi kariim barnaamijka waxaa soo saaray Cabdulla Cumar Muniir waxaana igala qayb qaatay farsamayaqaaniinta kale ah Cabdixakiim Alfaqi Cali Naaji Cabdirashiid Rashka iyo weliba Maxamed Biibaye iyo Axmed Daahir Axmed Dheere waxaan leeyahay daawadayaal meel kastoo aad joogtaanba inta aynu ku kulmayno barnaamijkan lamida Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga oo idin leh intaan u yarahay intaan u weynahay inta jinkay daawadayaal oo dhammaantiin meel kastoo joogtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh